xaaladda isbeddelka guud ee magaalada Oodweyne ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo dhinaca caafimaadka kadib tallaabooyin ay sameeyeen dadweynaha magaalada Oodweyne iyo wasaaradda caafimaadka Somaliland oo ay ugu kurgalayeen dhaqaajinta shaqada isbeddelkan oo muddooyinkii u dambeeyay la soo darseen caqabado tiro badan oo ay ka mid yihiin dhinaca daawooyinka iyo waliba gaadiidka ambulance-ka waxaana aan haatan shaqayn ambulance-kii ee shirkadda Dahabshiil ugu deeqday isbeddelka guud ee magaalada Oodweyne ay hoos timaado mas'uuliyadda caafimaad ee bulshada ku dhaqan deegaanka Oodweyne telefishinka caalamiga Universal oo booqasho ugu kurgalay xaaladda dhabta ah ee uu ku sugan yahay isbeddelka guud ee magaalada Oodweyne ku tagay isbeddelkaasi ayaa halkaasi kula kulmay Dr. Ibrahim Jamac Kaahin oo ah doctor ku takhasusay daaweynta cudurrada guud isla markaana ah doctorka kaliya ee ka howlgala isbeddelkan waxaana ugu horeynba doctorku ka warbixiyay isbeddelka ku yimid isbeddelkan runtii markii aan imi anigu waxaan shaqada bilaabay 1 July ayaa shaqada bilaabmayna halkan dawooyinku aad bay u yaraayeen si misuse-na waa lagu sameyn jiray waxaa jiray dawooyin qaali ah oo dhacsanaa oo iska yaalay meesha kuwiina waa nugubnay imika laakiin dawooyinkii intii essentialka ahayd waanu haysanaa inkastoo aananu weli complete aananu hayn taana waxaanu ugu mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadka siiba wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka markaas aad u aragtaan bay imika store weyn waanu leenahay dabadda doono intana waa farmasiga yar dadka aanu ku eegno intaas dawaa taalla waana dawooyinkii essentialka dadku ay u baahnayeen badanaaba sidoo kale dhakhtarku waxa uu sheegay waxqabadyo wasaaradda caafimaadka Somaliland ay keeni doonto toddobaadyada soo socda isbeddelka guud ee magaalada Oodweyne runtii horta waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadka ee Somaliland wasiirkeeda iyo wasiir ku-xigeenkaba sida wanaagsan ay noo qabteen qalankii ay noo galeen kasoo baxeen ay masaxeexeenba in ay maxaan ku rahdaa 3-4 week gudahood ku imaanayaan dad dhisa cusboonaysiiya qalabkeena oo isbitaal caalamiya ay ka dhigaan mar loo weydiiyay doctorka waxa uu ku ogyahay hadalhaymo maalmihii u dambeeyay soo baxayay oo sheegaya in gacan ku haynta isbeddelka guud ee magaalada Oodweyne ay la wareegayso hay'adda Bisha Cas oo iyadu muddooyinkii u dambeeyay la tacaalaysay wax ka qabadka xaaladda caafimaad ee deegaanka Oodweyne way jirtaa hay'ado badan ayaa soo apply gareeyay markii la doonayay in la cusboonaysiiyo isbitaalka oo dhakhtarka Oodweyne dabadeed waxa ku guuleystay sidaan ilaa imika maqlay hay'adda Bisha Cas hay'adda Bisha Cas wax badan ka shaqeynaysay gobolka Oodweyne haysatayna badanaaba xanaanooyinka ama loo yaqaano MCH-ka dabadeedna idaa la wareegaysa waxaanu filaynaa shaqa aan wada shaqeyno si fiican aan wada shaqeyno dadka degan gobolka Oodweyne waxaanu u sheegaynaa in aanay mar dambe Burco iyo Hargeysa aanay u safri doonin caafimaad ahaan imika nafteeda way yaraatay ilaa intaan nimi aanu yar hagaajinay dadkii tagayay Burco iyo Hargeysa caafimaadka u tagayay ugu dambeyntiina ma jiraan tallaabooyin cad oo laga hirgeliyay isbeddelka guud ee magaalada Oodweyne Cabdikariin Maxamed Jaamac telefishinka caalamiga Universal Oodweyne